madaxii maradu ka qaaday ninku markii madaxii maradii ka qaaday ayuun baan naxay ninkiiba reer aakhiradu bisu bedel waa ninkii dhamaayeen dee jacaylka u hayeen la sheekay nolosha la gaadhay ha ayuun bay isu bedel reer aakhirad caadi dhalinyar badan baan waxaan ku nayaareen anigu dan in la talkhadaran helo xafiis ka shaqeeyay way ii gashay dameerteed waa nin geel la gashay maalintii dambe ayaan suuqa meel aniga habla kale meel ka nimo kabtu bay ga goday kabti markay ga godon baan inuu wala reer nimanka kabaa tulay ayaan ku leexdo on de kabta ka yeesho waa baasagi dad baa leeyay wadaadkiiba shaabug dabada ay qabtay la waa gabar jacayl haye ugu tama gawdu iga saar wuxuu yiri intan balle wax ka hadla jiro koronto igu qabto si walba wii gala naalillah miyan qaylina qof aan lagu jirin halkan ku balaana nin waalan si fadhiistay basaskii nin waalan baaba seeska laftigiisaan kula balamay ninkii si fadhiistay Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh daawadayaal ku soo dhawaada munasaqadii dhamaanba baraha bulshada aan ku leeyahay waa mar kale iyo barnaamijkeena xiisaha badnaa ee sheekooyinka waxayna la joogtaa Leila Ibrahim Jibriil oo ku magac dheer Leila Dheeman Leila muddo badan baanu in badan anigu aan si bareefada u sheekaysanaynay muddo badan aan wada qoslaynay marka waxaan go'aan ku gaadhnay bal sheekooyinka qosol kale iyo qiiradaba leh labadaba aan idhaahdee ballan daawadayaashan la wadaago Leilana way iga aqbashay Leila soo dhaw waan dhawahay walaal habeenkan caawa horta habeenan ka fiican ma jirto waxaan la joogaa muuno weligiiba jeclaan taageeri jiray ayaan caawa leefahaan hor fadhiyaa ma sha Allah ilaahay sukaayo keenay alxamdulillah waxaan ka sheekeynayaa horta sheekooyin badan ba horta Leilay intaan sheekaysanay in badan baan inta inuu Leilay sheekooyin badan baan ka sheekaysanay kala duwan oo intaba adiga ay ku qabsadaan ay kugu dhacaan dadku inta badan waxay ka sheekeeyaan sheekooyin iyaga aan ku dhicin oo yiraahdaan qofkaas ay ku dhacday laga yaabaa xataa iyaga inuu ku dhacday laakiin ay maldahayaan oo qof kale ay ku maldahayaan sax marka adiga inta aan sheekooyin adii sheekeynaysa intaba oo qaar adiga ku khusay waa qaar qosol iyo qaar kale bal teebana soo horeysiina Leila waxaan soo horeysiinaa sheekadii in ninka walaana xisku ugu tagay وسي قصله وهراك سي قصله munay horta markii aan dhalinyartaha aan dhalinyartaan anigu ina yaro oo dhalinyaro oo marka sheekadii iigu horeysay ee ninkii iigu horeeyay la sheekaysto waa ayuha waxa dhacday ninka hablihii habeenkii horta dibadda kama noqdaan anigu maqrib hadii gabalba dhaco anigu albaabkaygu hoostu ku xidhnaa jiray dabadeetana maalintii markaan baxo aanba macaan adeeg lay diro amba aan dibadda wax layga diro adeega ayaan anigu bixitaankaygu ahaa intaana saacad baa laga qaban jiray haddaan raago laga go'naan jirtay dabadeetana inankaan sheekaysan jirnay sheekada macaane ayna dhex martay in yaroo daqiiqada oo laba eriyoon isdhaafsano mooyaane maanaan sheeko golo fadhiisiyo dee sidii xiisalahoo go'aan lahoo dee aynu meel dhigno islamanaan gaari jirin dabeedna waxaa dhacday habeenada ka mid a ayaa qolo deriskaygii aroos yeelatay dabadeetana horta waan xanuunsaday xanuun baa horta igu dhaco jacayl baa dee igu dhacay jacaylkiinan kaan la bukooday asna wuu xanuunsadayoo dee way la bukooday heesuhu markaa canjaladaa ii soo duubi jiray waxaa ka mid ahaa markaan xanuunsado dabaylaha fariima inaan soo dira shimbiraha darbaa jira la dirta adeegee heesahaas canjalada ka mid ah ayuu heesta ayuu ka mid soo duubi jiray canjalada waa waqtiga canjalada la isu duubi jiray waraaqaha la isu qori jiray telefoonna ma jirin waa muddo noqonaysa 2001 meelahaas bay ahayd dabadeetana maxay haydayeen wuxuu dabeedna inankii canjaladahaas ii soo duubi jiray waan dhegeysan jiray waxaan anaa jeclaa heestan tirahaa sida ay rageel irma laga dilaan ku ololaya heestaasaan aniguna jeclaan jiray kuwaasaan aniguna u geyn jiray markaan haleelan da waqti u helan inta yara daqiiqada u duubi jiray dabadeetana anagoo inankii sidii isu jecel ayaan bukooday oon xanuunsaday dabeedna hooyaday baa dabeedna dhakhtar baa la geeyey dhakhtarkii baa uu i baaray
dhakhtarkii markuu baadhay buu inanta wax xanuunaba kuma hayna maxaad ku arag mar ma qabto haddaba sawtan u caynkan cuntada ma cunayso caynkan waxa la waxay inantaasi cuntaa ma jirto habeen iyo maalin bay soomantay markaasuu inantan xanuun kuma hayna waxaad u geysaa hooyo iyo islaanta ku yidhaahay ordo meel wadaad u gey inanta qur-aanka lagu akhriyay mala meel wadaad baa la ii geeyey wadaadkii baa shaabug dabada ay qabtay la waa gabar jacayl haye gawdu iga saaray wuxuu yidhi inantan balle wax ka hadla jiro koronto igu qabto si walba uu ii gala miyaan qaylinay qofaan lagu jirin wuxuu yidhi waa la yar jiira isaga laftigiisa dee wuxuu fahansan waa la yara dureeyey waa la yara dureeyey waxaan ku yidhi dabadeetana qur-aan baa horta igu akhriyey markii dambena dhar buu soo sameeyey dhirtii baa gurigii laga keenay iyo saliid iyo wax la ismarinayay balaayo baaste dabeedna markaasaa la yidhi iswada mari saliidan oo naa dhirta nacaba waa kaa ma dhir baan cabayaa dee marka layga baxaaba suuliga ku shubaya dabadeetana anigoo sidiiya ayaa habeenada kama dadna qolo daris jaarkeyga ayaa yeelatay aroos hooyaa loo yidhi waxa la yidhi arooskan kaalayo dee aad nala qaadid alaabtay soo diyaar garow inankiiban maalinimadkii markaan baxay ku waryaha caawa jaanis baan hayaaye halkan seeskaa halkaynu ku ballanaa buuro seeska halkaa aynu ku ballanno oo haddaad iga soo horeyso igu sug haddaan kaa soo horeeyana waa kugu sugaya inankii farxaddiisii farxad bay ka badatay miyaad waanantay gabalkii intuu dhacaya la noqotay sanad anna intuu dhacayada sidoo kale way baxda sidaa markaas ooy kininka uga baxdaan na kininka boobo shalmada yar baan isla markiiba xadhigga dabadda kusii diyaarsan tii baa la dego albaabkana waan sii cishaday sinaan dhow isaga soo furo waan ka baxa seeskii baan teg seeskii baan ayuu dee intaan halkaan ku ballaanaa nin waalan sii fadhiistay baseeskii nin waalan baaba seeska laftigiisaan kula ballamay ninkii sii fadhiistayba ana waxaa tiri markaa haddaad iga hor timaado igu sug baan haddaad iga soo horeysa haddaan kaa soo horeyna waa kugu sugay sidan usii roorayey ayaa ninkii waa laag fadhiista markaasaan ku uri alla walaal caawiba miyaad sugaysa oo dhaxan baa ku dishay lamar horaa timiba todh ila waa nin waalana maskaxduba joogtin alla war miyaad waalatay maxaa kugu dhacay maan xagaad ii qabata markaasuu dabeedna oo miyuu la hadlaya gawda markuu iga saaray aan wal miyaad waalantay wal maxaa ku helay bismillaah xanuuniye horteed markaasaan kor weeg markaasaan arkay inaan isagii baa nin waalan yahay waan murugsaday sidan gifta kun wax igu dhuftay baan markii dambe dee raxmaanku deyla daacad baan ahay waan ka siibtay big kabihii baan dee ka cararay midba meel gurigii baan anigoo fayfa gala albaabkii guriga degdeg baan u galay markaan gurigii galayba ayuu inankina show dabada yimi meesha wuxuu arkay kabaayig midba meel taal kabihii buu soo qaado inan dariskaagu yimi xunayaa dee inanta waan la ballansanaya bal orsooyaga waxaa la garanaya way timi maxaa ku helay waan ku dhawal ma nooleyni waalan bay dilay niwaalan kii mooday oon isagii moodayay ayaa seeska sii fadhiista annaga kula ballamayo markaan u tagana way qabtay dee markaa deedna saasay igu dhacday waxay tiri dabadeetana way u sheegto maalintii dambe adugu farmasiil tagayo dawooyinka soo iibsado nabaradiis marmariyo waanaan isqarinaya haddaan is sheeganay day iga daran maxaa ku saaray baa lagu leeyahay sheekadii dabadna inankii markaan sheekadii halkii baan inankii kasii wadno si aan baqaadno sii wadnayo dee haddana xagga calaf alla iska jira inankii anagoon isguursin gabarta iga tahriibay ayuu tahriibay ninka waalan ku garaacay iska tahriibay tartiibtiibu haddana laygu yiri inankii doonihii badda ku warqoomo ku dhintay laygu yiri beri dambe maqlay adigu sidii baan dee kasoo kabtayo waan ilaawayo sidii baan dabeedna ku ilaaway jacaylkii wixii dabeedna berigii dambe anoo roonaado dee inanka shantiya noqdo weyn aan marka hadday intii ka weynaado dee gashaanti noqday ayaan dabadeetana maxay heegayiin ayaan ninkan kalena isbaranay ninkan aan ku odhan jiray meel baan ugu tegay isagoo kaba ku samaynaya sheekadaas intaas ay noogu dhamaatay siyaaska maxay ahayd dee ninku waalan ay mooday ay la ballantay istiri wallaahi waa jacaylkaaga baa meesha sii fadhiya dadna garaacis badan ay la kulantay waaya sheekaba sheekay kasii daranta marka taa ka soo baxday marka ka soo baxaan beri dambe haddana nin aada u qurux badan isbaran ninka habeenkii baan sarki jiray
maalin wax la yidhaha mabaanarka jimciisha xafi maxaad ka shaqaysaa wuxuu yidhi xafiis baan ka shaqeeyaayo hay hawsha igu badan hay wallaahi dee siduu u labisan yahin haddaad aragto waxaad odhanaysaa niyo ninkan halkee laga keenay waxaan waa maxay lata weli ninkii nin la quruxana maarag weli hargeysa imika intaan joogay waddanka intaan joogay weli igama soo warbixin ninta jalmaano geedkaa lagu qurux badan hay ayaan marka beriga telefoon ma jirin mee telefoon waa jiraa waa nagana saragna tan ka hadal baan sitaa markaa tankaada waa waqtigii dambe haa waa waqtigii dambe way tan ka hadal baan sitaa waa markii aan telefoonada waaweyn soo gelin bay okay dabadeetana inanka quruxdiisi saasaan u daawadaa habeenkii baan saragna bahal cadar isku soo shuba wuu soo labistaa dee waa nin ra'iislayaashaasu kasoo xirtaayo kasoo feedhaayo dee kaale arag saasaad u daawanaysaa xubnihi ku yaalay jirkiisa halkeed ka shaqaysaa dhiigduu kasoo xidhaa waxaan ka shaqeeyaa bur walaal xafiis baan ka shaqeeyaa dhalinyar badan baa nooxan kulmaa yaadhahe anugu de nin la talkhadaraan helo xafiis ka shaqeeyay way ii gashay dameerteeda waa nin geel la gashay maalintii dambe ayaanu suuqa meel aniga habla kale meel ka nimo kabtuunba iga goday kabti markay iga godun baan inuu nawala reedi nimanka kabaa tolaya ayaan aan ku leexdo oon dee kabta ka yeesho waaba asagii laftigiisoo kabii tolaya waa ninkii xafiiska ka shaqaynaya hay'ada la shaqaynaya hay'ada la shaqaynaya war ma adigiiba haa nin bay igaga tago ma xaba male walaale markaan arkay isagana dayna ku xidhantay anna aan naxay dee ayaan ku waxba male walaale waxaad samaysaa kabtan ii samee kabtiiba ii tolan mid ku xigay igu dhibay kabtiiba lay sameeyey markuu ii tolay baan iskaga tegay anu asna ima soo garaacin ima soo dabado xataa lambarkii u bedeshay anna dee meelu marayaba dambaba mana rag lambarkiisaba waa kan uu tuura waaya sheekadii saddexaad iyadama waxay kugu dhacday markii hooyo noqotay caruur yeelatay mise isla waqtigii isagana anigoo markaa aantaan laakiin roon oo dee gashaanti noqdayo oo isla dee oo laakiin xoogaa marka ay kasoo wareegtay oo laakiin caqliyeystay dee oo aan dee aan ayay igu dhacday tana nin baan isbaranay maalin maalma ka mid ah baan isku maranay meel ninkii lambarkii baan kala qoranay weli markaa danka hadal baanu sitaa moogti ninkii markaan isbaranay een halkii isku baranay ninkii si fiican baan u sheekaysan si lafiya laxaadli ayaan isu baranay oo sidii dadku ay u sheekaysan jireen ninkaa saan u sheekaysanaynay sheekadayda waxay durugtay guur bay gaadhay guur markay gaadhay ayaan dabeedna ku yidhi ayaan dhowr habeen ku yidhi war walaal haadhe horta kulayl watan kulaylka ay wadanku iska kululiyey maka cumaamadan 24 saacaad ku xidhan tahay maad iska furtid markaasuu wuxuu igu yidhi walaalo maxay heeday cumaamadanaan waan iska xidhaayo way dabeecad cimaamada markaa isagoo xidhan baad ku barata anigu isagoo xidhan baan ku barta dabadeetana waxaan ku yidhi walaal iska fur iska leersa adigu ninkuu furi waay sheeko kale iyo hawlo kale wuxuun bay ku dhaafiyaa sheekadayda way sii socoto guur bay gaadhay oo de waxaa la doonay in odayaashii lala hadlo in odayaashii lala hadlo ayay gaadhay dabadeetana habeenkii aabbahay lambarkiisi aan lambarkii u sheegay waan u sheegay markaa lambar ayaan ku yidhi walaalo mid makaa codsadaa dee waxa weeye madaxaaga horta inaad i tusto bidaar baan leeyahay buuri waxaan ragga soomaalida oo inta u badan bidaar bay leeyihin laakiin asalan dee madaxaaga inaad i tusto weeye de haa way qurux badan tahay in la isarko oon waxba la isu qarin ninkuu iga yara meermeera adigu waan ku adkeeyey madaxii maradu ka qaaday ninku markii madaxii maradii ka qaaday ayuun baan naxay ninkiiba reer akhiraduun bisu bedelay waa ninkii dhammaayeen dee jacaylka u hayeen guurka iyo nolosha laisla gaadhay haa ayuunba isu bedelay reer akhirood caadiya naxdin intaan naxay ayaan kadinkaa ka booday marka horta ragga soomaaliyeed inta badan waxaan u sheegayaa inaan hablaa marka inta wixii jira rag iyo dumarba inaan laysu qarin marka laisbaranayo haa in marka laisbaranayo sax oo xaaladaasa jirta dee ninku sheegu yidhaho walaal xaaladaasaan leeyahay sax ay gabadhu laftigeedu sheegto marka waa layska qariya waxyaabaha badan ee laysu qariyaa waxyaabaha dhow labada qof ay isku fahmi waayeen hadhow ku kala dhaqaajiya marka waxaan odhanayaa dhalinyarta aan weliba dadka aada u odhanaya sheekaysanaya marka dhalinyarta in layska ilaaliyo
beenta waa been oo ay ragguna dumarka waxay dhahan run baan ku dhaqaynaayo been baan kusoo xirigelinayna laakiin runta laysu sheego uu ninku xataa markuu shaqaynayo yidhaha walaal waxaasan ka shaqeeya ee haddaad ugu gelisanaya ugu gal haddii kalena dee aday kuu taallaa wax la-aantana layskuma naco kowdha ninka hadduu dhaa midh ma haystee gabadh baan doonaya ilaahay baa wax bixiya rabbiga macbuudkaaba isku kin barakaynaya laakiin haddaad waxaan jirin ka sheekayso tira xafiiska ka shaqeeyato amba tiraho intaada qariso meeshaa dhib badan baa ka imanaysa marka taasaan u sheegaya inaan laysu qarin waxba hadhowna dee waxa weeyaan fashil bay ku dhamaanaysa haddii nolol guur markaa noqoto been kusoo xergelis noqoto runtii waa laysugu meeshaasi ma hagaagayso saddexa sheekaba waxay khuseeyeen mid marka laga reebo labada kaleba inay nimankaasi beenay kuu sheegeen midna uu intiisii kaa qarinayay midna uu kaa qarinayay shaqadiisa dhabta ah iyo waxa uu qabto dee labadana waa waliba qof aad u haysay niyad ila qofka marka niyadda u haysay markaad ka xaraanaysanayso isku mid maaha labay kala tahay marka halays ilaaliyaan leeyahay rag iyo dumarba beentu ma fiicna aad ma wanaagsan dumarka laftarkooda qaar baa been ragga ku shukaamiya in lagu shukaamiyo sharcigeena inaguma jirto kuma jirto in la iska ilaaliyo qurux badan xaqiiqada runta ah ha lagu wada dhaqmo hadhow baa la ismudanaya hadhow baa la ismudanaya haddaad tira waxaanad haynaad iska dhigto dee waxba inoo hagaagi maayaan marka waxaan aad u sheegaya aanu dhalinyarta ugu sheegayan dadka u sheegayan bulshada u sheegaya in runta laysu sheego waay markii dambe hooyaad noqoto markii dambe hooyaan noqday in baan isguursanay caruur baan dhalay awlaad baan haystaa meel baan deganahay maasha allah tabaaraka allah ilaahay wuu barkeeyey reer ballaaran baan noqday alxamdulilah rabbi alcaalamiin waay markii intaasoo sheeko ay kugu soo dhacday horta calafku isaga cajiibaba waa run odaygaaga qaab noocee isku barateen isaga sidee asaga waxaan isku baranay isaga si caadi sidee dadku isku bartaan baan isu baranay qof runta ka hadla waa noqday miya runtana uu ka hadlay haddii la ku roon yahay waana dee gabadh markaa dee dhalinyaro xooga dee gabadha weynaato caqalaysatay dabeedna waanu sheekaysanay sidii caadiga ahayd jacayl baana dhex maray sheeko guur waanu isbaranay waanu isfahanay dee xaqiiqadii runtaa baanu ka wada hadalnay xaqiiqadii runta ahayd markaanu ka wada hadalnay oo asna dabeecaddeedii bartay inaan dabeecaddiisii bartay baanu dee isguursanay reerkayga weydiistay siday caadiga ahayd marka manu hayn dee nin bidaar lana muhayno madaxiisa qarinaya oo dee aan ka baqanayo xafiiska shaqadiisana igama qarin wuxuu qabanayo iyo shaqadiisii hawshiisiiba lagu ii sheegay oo waxaan ku uri waa ragga mid baan ku aqaanaayo raggu runta ma sheegaan baan ku uri marka asagu runtuu ii sheegay igamabu qarinba shaqadaasaan qabtaa buu yiri kowdhe nin saasaanu wuu ii sheegay sidiina way noqotay calafnuu ka adeego sidii baan isku guursan marka wakaa maasha allah imkana u badbad haysataa imkana awlaad baan haystaa maasha allah meel baan deganahay alxamdulilah rabbi alcaalamiin waya intaas oo soo martay adiga khadra dheeman ahaan dhalinyarada hadda joogta weli qaar baa arrimaha kusii jira oo xiiseeyaba qaarkood inay been ay wax ku shukaansadaan waxaan odhan lahaa waxaan odhanayaa dhalinyartan u sheegaya hablaaya nimadaba in runta laysu sheego inaan wax been la yidhaaho aan laysu sheegin beenta horta waa xaraan waxa weeye ninku hadduu gabadha been u sheego uu yidhaaho been ku shukaamiyo gabadhan kula sheekayso arrinkeeda arrin kaga dhig waxa weeyaan ma wanaagsana waa waxyaabaha shaar madoobeeyaha laga qaado arsaaqadina kuu kordhi mayso ma garata dumarkana waxaan leeyahay sidaas leeg ninka ragga inaan been loo sheegin oo runta xaqiiqada runta laga wada hadlo ma garata oo la yidhaa inaad irnan saasaano caynkaan waxba laga qarin haddii aanay doonayna ay runta u sheegtay tira walaal isu kenkeenin anu imaad qancin asaguna uu saas leeg marka waxaan leeyahay hablaaya nimada dhalinyarta waxaan leeyahay la iska ilaaliyo horey intii ugu badnayd aduma been lagu sheegay oo dee shukaansigii dee kugu dhacaysay been lagu sheego adigu marna ma jirta aad been ku shukaansan wallaahi walaalo horta beri baa nin horta beenta mar bay banaanta markaa waa marad ku baxsadaa way jirtaa marad ku baxsan kartaa jirta beri baan
ilaahay baan jecelanin ban taraag wada burcaan qabtay horta burcaan markaan tegay baan wiil isbaran wiilkii baan iskaga taag waayay dariiq walanka wareega waaba taagay berigii dambaan ku warwariyaa anuu doonaya inaan ka tago burco ayaan ku habeen dambe haynoo ahaato barta iyo habeen dambe haynoo ahaato subaxiina waan ka anbabaxay berigaasaan weligay been sheego beentaasna waxaad iskaga reebaysaa beentaana reebar markaan arkay ninku dee siduu yahay wuxuu damacsanaana ilaahay baa ayaan ku uri ayaan sidaad uga siibato habeen dambe calay kul xaalun baan ugu soo guuray halkaas uu ka waqti ma hayo marka hawl badan baa ii taala marka haynoo ahaato habeen subaxiina burco waan ka baxay beri dambe inaan ka wana saragna waxaan ku wara iska kii cafilaag xilligaa waan iska kaa reebayay waan iscafin waan cafiyana صح markaas kugu horeysay been wallahi igu horeysay ma jecli wal rag been inaan u sheego waayahay sheeko kale ma soo kan harsanay si intaas u been oga waay waxa jira in marka inaad aragtay mooyaane dhalinyaro jacayl ooyaya jacayladoo adiga arkay intaa laga sheekeynayo ninbaa saanay galay ninbaa ingan ninbaa ama midle ninbaa noloshayda siiyey maalkayga siiyey sidaas ay gashay waay marka sheekada jacaylka lagu guda jiro dadku xad bay kala leeyihiin de marka la isku guursaday marka kale labay kala tahay wax weeyaan xad bay kala leeyihiin waa ina de qalbigaaga inaad xad u samayso waayo qofkan inaad helayso iyo in kale ma kala ogid marka dhalinyaradu gabigooduba naf iyo maalba isdhiiba khadraay maxaad kula talin lahaa waxaan kula talin lahaa dhalinyarta horta ragga inuu isdhiiba maaha ninku dee mudkiisa dee siiyo gabadh horta inuu helayeyn kale aan ogeyn sax oo maxay hayday dee wax kaga soo bixiyo dee waxay kula kulmi ilaahay ogyahay markaan waxaan odhan lahaa ragga horta dee inaad xoolihiina aad bixisaan oo aad gabadha tiri waan ku jecelahay waxaad kala kulmiyo waxa dee aad kala kulmi ilaahay ogyahay inaad faraa kaga shubto dee ma wanaagsano waxaan leeyahay isbarqabo laakiin qadaray raggo kaliya maaha wax adduunka bixiya dumarka laftigooda waxaan leeyahay war ogaaday xataa ma waxaan ogaaday dumarka xataa bariga hore aniga waxay leeyahay jirtay wax possible inay gabadh lacag bixiso sax laakiin waxaan arkay oo ii sheekeeyay qaar lacagta yar xataa ifan hadaanay shaqayn horta tii shaqaynayso waaba shaqaynayso lacagteeda ku daldalayso wacanka kuwa gurigooda jooga aan shaqayn waxyaalaha yar ama shoobin loo siiyo ama xilliyada ciidka la yiraahdo waxa ku soo iibso inay isu dhaafin jireen jacaylkooda ay siin jireen qablahaas horta wallahi walaalo waxa weey horta waxna waa siin waxna waa khiyaamo moogta wax lagu khiyaamay marka hablahaas waxaan sheekadooda marka ii sheekeynayaan ka dhadhansaday inay hayaan hablo iyagu jacaylku ku badan yahay qofku markuu jacaylku isagu ku badan yahay kala waaba ku dhacayo wixii soo qofkan soo jiido wixii ku dhameynaya ay wixii ku dhameynaya wala ma wanaagsan marka hablahaasina waxay hayaan markuu telefoonka raqabta soo yira wax weeyaan qofkana hadii aad aragto inuu ku jecel yahay maaha inaad ku tumato hablo lagu tumanayay bay hayaan si macaan iyo telefoonka lagu dhageysanayo oo aan laga qabanayn oo maxay ahayd lahaa maxaad iga soo wacaysaa hadaan qaar ba xataa naftooda qaarkood ay u soo dhigtaan sheekada la galay walaalo ma fiicna munay waxa weey mid baaqta hala meesha walaalo waxa weey eeg qofkii ku jecel yahay Soomaa waad arkaysaa qofkii waxaad haday aanad walaalo adigu jeclayn in runta loo sheego qofkii aayahaaga dambe ay xuntahay awlaadda dhali doonta ay xuntahay dhibaatadaas waa kan ku taala adiga markaa ku beeran weliga ilma inay nintii baan ka hadhay kama haris marka waxaan leeyahay hal iska ilaaliyo oo hablahana yaan walaalo lagaga faa'iideysan wala marka jacaylka qofku ku dhaco inamadana sidoo kale marka waxaan leeyahay hal is ilaaliyo dhalinyaro is ilaaliyo dillaanahay duruufta la iskaga ma faa'iideysto qofkan hadii aan niyadu doonahayn runta u sheeg runta waayo waxaad ka talinaysaa aayahaaga dambe awlaad badali doonta hablaad dhali inamaad dhali aayahaaga dambe iyo awlaadaada iyo maxay haday in caruurta kuugu jirta tagooga u tiro iyo naftaada intaba
waayahay talo wanaagsan weeyaan taladan ha la qaato intaasaynu kusoo gabagabaynaynaa Insha barnaamijkeena sheekooyinka xiisaha badnaa oo caawa marti inoogu ahayd Leyla Dheeman oon aad uga mahad celinaya waqtiga wanaagsan ee noo soo hortay sida wanaagsan ee noogu sheekaysay markan iyo marar kale insha Allah isu insha iman Allah doono dhammaantiinba mar labaad aad baan u salaamaya namada sharafta leh iyo Muuna Dheeman oon caawa hor fadhiyo dhammaantoodba madaxa ay wada saaran yihiin Masha Allah, Allah ha Muuna. barakeeyo anigana sidoo kale waa dhankii kamarada Marwaan Yare iyo waliba Maxamed sidoo kale habeentii hagaajinta Xasan waa Masha Allah, Munisaqadi tabarakallah. iyo YouTube-kaygii Munisaqadi media. Assalamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu